dadka reer Suudaan oo qarka u saaran in ay gaajo u dhamaadaan. Intaan u gudagalin sheekadan haddii ay tahay markii kugu horeysay oo aad na soo booqato, waxaan ka codsanaynaa in aad nagu soo biirto maasanid. Hay-adaha ka shaqeeya gargaarka ee ku sugan dalka Suudaan ayaa waxa ay soo tabinayaan sheekooyin ku saabsan xaaladda bini'aadanimo ee ka jirta dalka Suudaan. Suudaan oo in ka badan sanada uu dagaal sokeeye ka socdo ayaa waxa ay qarka u saaran yihiin bulshada ku nool halkaasi in ay gaajo u dhamaadaan. waxaana la soo sheegayaa in xirada qaxoonti ee ugu weyn dalka Suudaan oo ku taala waqooyiga dalkaasi ee lagu magacaabo Zamzam dadka ku sugan ay qarka u saaran yihiin badankoodu in ay gaajo u dhamaadaan. Hay-adda la yiraahdo MSF iyo hay-ado kale oo ka shaqeeya Suudaan oo arrimaha bini'aadanimada ka shaqeeya ayaa waxa ay sheegeen in dawladdii burburtay iyo waliba kaabayaashii dhaqaale ee ku burburay dagaalkii sokeeye ee Suudaan ay keentay in ay burburaan dhammaan dhaqaalihii Suudaan, dadkana ay qarka u saarmaan in ay gaajo u dhamaadaan. waxayna sheegeen in gargaar degdeg ah oo ka badan 2 milyan oo dollar lala soo gaaro si dadkan loo badbaadiyo. sidoo kale warbixin ay soo saartay hay-adda qaramada midoobay waxa ay ku sheegtay in Suudaan ay noqon karto halkii ugu darneyd ee gaajo loogu dhamaado adduunka oo dhan. meesha ugu daran ee gaajada ay ka jirto waa gobolka Darfur, waxayna sheegayaan hay-adaha ka shaqeeya samafalka in gobolkaasi gargaar in la gaarsiiyo ay ka hortaagan tahay dagaalka sokeeye ee halkaasi ka jira. waxaa intaasi dheer in dadka beeraleyda ah ee reer Suudaan ee bisha May ee sanadkan oo ah xilli beereedka sanadlaha ah ee dadka reer Suudaan aysan waxba tacbanaynin, taasi oo sii adkeyn karta xaaladda ay hadda ku sugan yihiin bulshada reer Suudaan ee gaajada u dhamaanaya. hay-adda MSF waxa ay sheegtay in 2 saac gudahooda hal cunug uu ku dhinto xiro qaxoonti oo ku taala waqooyiga Darfur. waxayna sidaas ku sheegeen baaritaan ay ku sameeyeen in ka badan 10,000 oo qof oo barakacyaal ah. hay-adda waxa intaasi ku dartay in dhulka fog ee miyiga ah xaaladooda ay ka sii dari karto dadka ku nool haddii aan gargaar degdeg ah lala gaarin. Suudaan waxa gacan ku haynteeda ku loolamaya Abdallah Hamdouk iyo sidoo kale Maxamed Hamdan Daqal, labadaasi askari oo ka kala tirsan ciidanka militariga Suudaan iyo ciidanka gargaarka degdega ah ee Darfur ka shaqeyn jiray ee RSF la yiraahdo. waxayna dalkaasi labadaasi ciidan ee kala hogaaminayaan labadaasi jarnaal ay u keeneen in uu burbur badan galo. daarihii quruxda badnaa ee Suudaan iyo sidoo kale guryihii safaaradihii caalamka ayaa hadda waxay isku bedeleen fagaaro qashinka lagu xareeyo, sidoo kalena ay u hoydaan dadka ka dhuumanaya dagaalada iyo xabadaha wiiftada ah ee labada dhinac ay isku adeegsanayaan.